بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتو عن أو ناكسن أصحاب غالبة أكون سعودة وهذا يوتيوب كيغا شكري لابو اكتوس مركلة فيديو عصب أياكو كل مينا هذا جنال كينا كل عصب تهاي فيديو أنو يقيكو غوري وحكا عصنا جنال كينا سبسكراب عايدة هذا فيديو أنا إلا يكريسيت شركة أصحاب تهذا على وذاتي وأنكم هسنتين داوشة فيديو يا شيدا سيدا كلا كسل الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم على نبينا محمد إذا كدب وحامات إذن هاي شركة عصب شركة أنا معناتها واد شركة دل أرحم دراء أواي وحي كد على ودن كتونس كما لده خيروان أي كد على هالكاس كنول وحكم إذا لا قبض صاحبة ومثل ده هيفا يسكينا هيفا يسكينا وحي أن لا قبض صاحبة صاحب تنمذ وحي صاحب تنمذ عمر جايه هيفا ده ذو عفري لا تنسى جير مركي وحبرشة ده لما يستي waxay samaysatay shaqo iyada u gaar ahaan waxay samaysatay harqaankay samayn jirtay waxay heshay maxaa lahaa dad badan oo macaamiil ah dukaan yar meel ka furatay inkastoo dukaankeedu uu ahaa dukaan aad iskaga yar haddana kastan badan ayay heshay badanaa dumarka waxay jecel yihiin dharka dumarka tolaana jecel yihiin because ayadaa qaabkeeda taqaano marka fasaatiinka kan iga bedelka saa igu samee noocaasa rabaa aad waxay busy ugu noqotay harqaankeeda iyo sameynta fasaatiinta iyo dharka ay dumarka u sameyso halka sukeyna markii ayadana saas waxbarashadeeda u dhamaysatay waxaa soo doontay wiil way guursatay waxay noqotay hooyo gurigay degtay ilmayna dhashay caruur halkaas iskaga dhashay muddo kadib hayfa nolosheedu waxay mid aad maxaa la dhahaa u sareysa harqaankeedaas iska tolanaysay waxay noqotay qof micnaha mujtamaca ka dhex muuqatay noqotay waalidkeedii walaalaheedii dadka dhan ay iska jeclaayeen sukeyna waxay yeelatay family iska yeelatay ilmo iska dhashay ninkeeda u soo shaqeyn jiray ninkeeda shaqadiisa wixii shaqo iska hooseysa marka waxay dareentay sukeyna in wax kasta ay u baahan tahay waxyaabaha ilmaheedu u baahan yihiin wax walba ayna dareemaynin isku filaasho oo dhaqaale ahaan ay aad u hooseeyaan muddo kadib oo markaas hooyadu ilmo badan haysatay sukeyna maalmaha kamid waxay soo booqatay hayfa maadee waxay dhahday wallahi bilaahi xaaladeeda uga sheekeysay waxay dhahday saan iska nahay wixii wadaadka keenaya wax nagu filan ma ahan xaaladeena saan waa saan wixii uga sheekeysay dhahday hadda wax yar oo lacagan kaa rabay dhahday deyn camal inay weydiisato waxay dhahday ii sheeg waxa u baahan tahay oo kaliya adiga waxay dhahday marka laga soo tago familygayga qofka kaliya u noolahaba adiga lee waay walaalahay iyo waalidkay qofka ii soo xigo adiga waay dhahday marka hadaad aniga wax ku siinin oo aniga wax weydiisanin yaa wax weydiisanay camal waxay dhahday intaasoo lacagaa rabaa wadaadkayga deynaa lagu leeyahay deyn fara badan intaasaa lagu leeyahay annagii nolosheena iyo wixii iyo ilmaha waxyaabaha aan rabo wixii dhan waxaan ku dadabarto dhan ba waxay dhahday ma haysto okay waxay dhahday hayfaa dhib ma lahan waxay siisay lacag cadadkeeda lama sheegin laakiin lacag aad u badan ay siisay lacag aad marka iyada ay ku faraxday oo badan bay siisay intii ay sheegatay ah bay siisay lacagta markay siisay waa iska baxday sukeyna ayadoo aad u faraxsan oo micnaha waxyaabaheeda umuuradeeda waxay ku dabaratay ayadoo heshay way ka tagtay markay ka tagtay muddo 3 usbuuc 4 usbuuc camal kadib bay usoo laabatay heefa ayada waxay busy ku tahay dadkan qaar u imaanaya saakada u tashay qaar kuwa ka bedelay rabo qaar dhar cusub dalbanaya meesheedu waaba busy ba maasha Allah shaqo aad u fiican haysatay so sukeyna way imaaday hadana way soo booqatay markay dadka ka kala yiraadeen cabaar isla sheekaystamay heefa waxay dhahdeen nacadi maalmaha dahabkii wixii aad jirtay ma lahan gacanta waxta hal faraanti kuma jireen maxaa kugu dhacay dhahday markaas tira dahaba ka sheekeynaysa iyo faraanti anaga nolosheeda la dhacoonay dhahday sukeyna dhehayso saas wiyaha lacag kale u soo bixisay lacag kale waxay tiri faraanti iyo katiin yar oo qoorta aad gashatid carabta aad waxaas wixii xiiseen muqtaa marka waxay dhahday katiinad yar iyo faraanti yar soo gado hadiyad aniga xaqay kaaga tahay alaabtan qaado micnaha saa wax at least marka jidka maraysa faraantigo yar xataa aad wadatid hayfa way faraxday waxay tiri wallahi aad u mahadsan tahay daraad leeb siisay lacag aad fara badan haddana matana siisay dhahday shukran way ka tagtay markay ka tagtay gabadhan shaqadeeda iska wadataa ayada nolosheeda busy ku ah muddo 4 bil ama 5 bil camal markii la joogay ilaa 3 bilood bay soo noqotay sukeyna markay soo noqotay dadkii sidii busy u ahayd gabadhan markay shaqadeeda dhamaysatay oo busy ka baxday bay waxay dhahday waxaa rabaa hayfa arrin aan kaa qariyay baa rabaa inaan kuu sheego noloshayda sir aad ka ogeyn aan waxaa rabaa dhahday inaan kuu sheego yaa dhahay sukeyna dhahays heefay ku dhaysa heefa waxay dhahday waxa ana iga qarinayso oo sir ah ma baa leedahay buu ha ana iga qarinaysa ma dhici karto wallahi sirtiisa jirta ka qarno hay ii sheegay waxay dhahday iyada ku iimaanay ma arag
miyaa hay dhahday inaad ku imaado oo wax yar oo daqiiqadaa kula joogo haddana kaa tagaayo haa hay dhahday laakiin waa caadi way soo booqanaysa saaxiibta ah soo maahan waxay dhahday maya sir kale ka dambaysay dhahday sababaa jirta asaa u sameynaa hay maxay tiri saadaas waxay tiri waxaa jirta nin kale oo aan saaxiib la ahay oo odag ninkeyga waxaan ugu soo sheekeynaya dhahday inaan aadaayo maxaa la hayfaa soo daqiiqadaha sirka waxaan kula joogaya waxaan rabay dhahday inaan aado ninka kale gurigiisa oo aan halkaas waqti kula soo qaato saasaan samayn jiray gabadha way xanaaqday waxay tiri maxaa kaa qaldan maadiga oo hiblaaye oo heefa sukeyne oo waxay dhahday ilma leh hooyo ah ilma leh aabbaa oo ilma soo jila micnaha familigaas sharafta badan kasoo jeeda ma wax aqlaaq xumada sameynaysa bay dhahday midda kale dhahday saaxiibtinimada aniga adiga dhexdeena khiyaamo ku sameynaysa ay dhahday inaa ninkaaga ku dhahdid heefaa aaday aan waxaas gadaashada ka sameynaysid xataa saaxiibtinimadana qalada ka galaysaa tar maxay tahay waxaas ilaahayna qalada ka gashay anigana qalada ay galaysaa ninkaagana qalada ka galaysaa way ku qaylaysaa adi furka ku tuuratay furka marka ku tuuratay tar sug taas ma dhibkiis taas ma ahan dhahday problemka aan kuu sheegayo taas ma ahan wax iga darana ay haysato aan rabaa inaa ila xalisid waxay dhahday hadana maxay tahay dhibka qoys waxay tiri uuraan leeyahay hada uur leeda waa normal maxay tahay marka dhibka soo ninka ma tiri ninkayga uurka uma leeyahay yaa u leeda saaxiibka u leeyahay waxa ifashilooyana oo saaxiibkay uurka u leeyahay ninkayga ugu qarin lahaa waxay tahay muddaba intii lasoo dhaafay aan ninkayga waxay dhahday inuu ii soo dhawaado agteeda maad waa aan diidi jiray tiri waqti dheerba soo sababta sida ninkan uurka aan leeyahay ninkan saaxiibkay baa uur u leeyahay dhaqan xumo akhlaaq xumo maxay ahayd qofto marka waxay dhahday wax ikashifooyana waa in zawjkayga muddo aad u badan sanad ilaa wax ka badan aan u ogolaanin inaan ii soo dhawaado taasaa fashil ii keenaysay dhahday marka waxaan kaa rabaa dhahday inaa isaacidid oo aa lacag isiisid cisbitaal halkaas ku yaala rabaa inaan tago ilmaha inaan iska soo xaqado kid hadda caloosheeda hadda soo weynaato wuu iga shakinaya dhahday inaanan wuuna hubaahay dhahday oo hubaa inaan aniga uurka inuusan isaga dhalin wuu hubaahay dhahday marka lacag isii si aan u fashilmin lacagta la iga raba intaasoo lacaga isii kadibna waxay dhahday ilmaha iska soo xaaqa cisbitaalkaasan taga ilmaha iska soo xaaqa waxaana kaa rabaa inaa isaacidid oo weliba aa u sheegtid inaa aniga maalmahaas 2 maalin camal ay qaadanaysaa inaa idabartid maalinta oo cisbitaalkii aadayo micnaha lacagtana iga dhiib adigana waa inaad idabartaayo qarisaa micnaha oo sheegtaa sabab aan guriga uga soo maqnaan karo inaa adiga la yimaado heefa aadaan dhaha inaa adiga idabartid aan kaa rabaa dhahday maya dhahday maya wax kasta hadday dhacaan dhahday anigu kugulama sheergaroobayay dhahday dulmigaas iyo waxyaabahaas dhaqan xumada ma kugula sheergaroobayay dhahday lacagna mideeda kale maba haystay dhahday ani haddaa lacag haayo makaa hakaran lahayn dhahday waa ku siin lahaa oo darad markaan lacagta haayo waa ku siiyey dhahday haddeer taana waxay dhahday lacag intaas la eg ma hayay dhahday ani kumana siin kari haddaan hayana kuma siinaayay because dembigan aa galayso qof noocaas wasaaqada aniga waxay tiri saaxiibtinimadeena way u dhamaatay mar dambe erdeeda ima soo geli kartid dhahday furka ku tuuratay waxay dhahday ma maanta ani aan kuu baahanahay baa saas i leedahay ninkayga caloosheeda ina soo weynaanayso arkoyaa way weydiiyey wuxuu dhahay maxay tahay calooshaada si usoo weynaanayso ani waxaan ku dhahay xanuun oo mindhicirada ay ahaayo caloosha saas habba maxaa la dhahaa banaanka usoo baxaysa marna iska noqonaysa waaye xanuunkaas ay ahaa cisbitaalaan rabaa ayaan ku dhahay maxaa la dhahaa isna wuxuu dhahay lacag ma haayo hadda intaana fashilmin adiga lacagta inaa iga dhiibtid waaye ku dhahda si kastaba haatee heefaa waxay ku dhahday aniga dembigan sheer muku ula noqonayo shaqana kuma lihi walaalay macaanay waxay dhahday inabadgeliya dhahday aniga sheekada sheer mukugula ihi lacagna haddaan hayo midii hore markii ani lacagta haysta waa aniga ku siinayo laakiin hadda waxaasoo lacag maba awooday dhahday aniga inaan ku siiyo way kasoo tagtay adiga waxay tiri maanta markaa kuu baahanahay oo ujeeda xaaladeeda inaad duruufaysanahay maa saas idhahaysaa garabka keliya haystayna adiga taa waxay tiri wax kasta aniga markaan wax haystay waa ku siinayo laakiin hadda ma kugula sheer garoobaa waaba dembi socdaa tahay dhahday mideeda kale saaxiibtinimadeed uma qalantid amaa isiiya dhahday way iska burisay way ka tagtay ninkii marka gabadhaan oo Zukayna ninka saaxiibka la ahayd oo uurka hadda u leedahay lacagtii maalintii ay ka qaadisay maxaa la hayfa tii ay ku dhahday deynaa lagu leeyahay ninkayga tii ay dhahaysay faraanta ku soo gado iyo xitaa lacagta ninkeeda uu siiyo oo biilka ah waxay siin jirtay ninkan ay saaxiibaa yihiin lacagta biilka ninka biilku siiyo waa ku filan yahay waa mustafa ninka ayada qaba shaqadiisa ha iska yaraato laakiin wax ku filan wuu siiyaa laakiin wixii si wanaagsan u wada isticmaalay maqaar ay ka jaraysaa ninkaas ay siin jirtay u aruurin jirtay ninkii marka lacagii wixii ay siinaysay baabuur soo gatay baabuurka markuu soo gato way u tagtay waxay dhahday aniga lacag ma haysto uuraan la igu soo baxay adigaana iskala uurkaan ninkayga hadduu ogaadana
inuusan lahayn wuu og yahay dhahday. Marka waxay dhahday please gaariga gad ana hadhow kuu gadaa isii lacagta keenay dhahday qaliin isku soo samee ilmaha iska soo saaray. Waxaasaa ila imaanin wuu dhahay ani gaariga gadaayo wuxuu dhahay isdabir adi isdabir. Waxay dhahday meel iska dabara malahan isma dabari kari lacagta gaariga gad ana hadhow kuu gadaayo kaala qaliinkan isku soo sameeya ma sameynayo dhah gaarigayga ma la gadaayo dhah lama taabtaan waayo dhah gaarigayga. So wuxuu dhahay u tag u dhahay saaxiibada u tag saaxiibada wuxuu dhahay soo weydiisay way tir saaxiibtay ma weydiisan kari darad lacagta gaariga ka dhigna ciidan ka soo qaaday haddana mid kale ku keenay ciidan ka soo qaaday haddana hadda ma dhihi kariya dhahday lacag isii waa intaas u imaanay su keenaya ninka intaas hayfa u imaanin ninkan soo martay. Marka wuxuu dhahay cabsi maxaa keenay dhahay dhibaa ku haysto dhibaa meesha yaalo dhahay waxba cabsanaynin u tag u dhahay saaxiibada lacagta isii sidaas marka heefa ugu imaaday heefana way diiday way iska baxday gabadhan gurigeeda tagtay waxay go'aansatay inay ku soo laabato lacagta heefa ka qaadato si uga qaadato xog iyo xeeladba inayba dishaba maalmaha kamid way soo baxday waxay aragtay dukaankeeda heefa busy iska ah mar walba dumar la imaanayo dumar la baxayo dumar la imaanayo dumar la baxayo soo jaanis dhanba ma lahan dukaan ma ahan firaqa ma ahan waxay soo fariisatay marka masaajid wuxuu ka soo horjeedaa dukaanka heefa masaajidkaas soo fariisatay waxay sugay marka ilaa inta jaanis yar ka hesho jaaniski way isqarinaysaa marka cabaayadii xijaab iyo waxbay ku wataa meesha iska fadhisaa marka maalintii koowaad way weysay jaanis way iska tagtay maalintii labaad jaanis way weysay maalintii saddexaad baa marka ay wixii rabtay agteeda kala yaraadeen waxay aragtay heefa kaligeed oo dukaankii fadhiso way soo oroday wixii istiradaada jaaniska ka faa'iideysan maalin kale kuma soo maraayo way soo dhawaad way imaaday waxay tira heefa ninkayga soo socdo ninkayga ay bursanayo meesha soo socda albaabka xir bilis iyo badbaadi wuu dilaa sheekadii ugu ogaaday way ogaaday inuu dilu raba badbaadi heefa way orday dukaankii xirtay dukaanka soo xirtay dukaankii xirtay qof miskiin daacad dukaankii soo xirtay dukaanka marka soo xirtay naagta marka cabaayada wadataa shareerka wixii wadataa hoosna surwaal iyo waxay wadataa surwaal iyo fanaanad maaliyada hoos ka wadataa mindidii wadataa ulna hoos ku qarsanaysaa way maada marka gabadha way iska fariisatay inta wax weydiinaysa xijaabkii tan iska siibtay inta meelaha ordaysa xijaabkii iska siibaysay oo waxay dhahday waa iqaariysan oo ku badbaada mala waranta gabadha kursiga iska fariisatay marka gadaasheeda intay imaaday madax waxay warifatay baash budka ay weytay ushii gadaal uga dhifatay gabadhan way dhacday markay dhacday ushii ku celcelisay markay aragtay inay dhacday way suuxday heefa way suuxday dhiiggii wixii maskaxda jugtii xoog badnaada uga dhacday way la suuxday markay suuxday mindidii la soo baxday way kalkalisay ilaa iyo inta ay ka ogaatay inaysan neefsanaynin oo hawadan aysan sameynin neefta dhan ay joojiso dhimatay ilaa ay ka ogaatay bay mindidii ku waday markay saas nafta uga baxday way istaagtay qaanadii furtay lacagta kala soo baxday wixii lacag meelaha u yini qaatay moobilkeedii qaatay dahabkii ka furatay faraantii dahabkii dhagihii wixii qaanada dahab ugu jiray kuwa iyada ay xirnad kulli way qaatay dharkii iska dhaqday meesha maqsalada tagtay dharka dhiigii iyo waxyaabihii soo gaaray iska dhaqday way baxday bow maba daahinba isla markii waa ay baxday isbitaalkii hore ka aaday baa taxi qaatay isbitaalkii tagtay lacagtii ay shubtay qaliinkii soo samaysatay ilmihi iska soo xaaqday habeenkii meesha kusoo dhaxday ninkii iyo u jirtaa heefay u jirtaa heefadii muddo kadib adiga saacad ka soo wareegeen waxay isleeyahay hadaa maalintii lagu weydiin waa maqnaaba isbitaalkaasaan jira dhihi doontaa ماشي دكانكي waxaa la arkay xil dambe iska furan qofaa soo arkay wuu furay haduu riixay gabadhan meesha taala dhiigkeedii bay ku dabaalanaysaa qofkii soo baxay askartu wacay askartii meesha imaaday meedkii meesha laga qaaday waa maxal lahaa baaristii la sameeyay qoliyii dambe baarayaasha wixii dhan isku imaadeen waa la baaray wax waa la waayay oo maxal lahaa gabadhan wixii dil waa la garan waayay soo maadaama mobilkeedii maqan yahay lacagtii ay maqan tahay dahabka uu maqan yahay waxaa la isdhahay tuug buu ahaa tuug ba xil dambe soo galay saas ku qaatay laakiin baaristi way socotay dadkii naagii way maan jiro dharka tulanaayeen xataa walaalidka qofna la mariyay qof kasta baaritaanka la mariyay wareysiga laga qaaday su'aalaha la weydiiyay qof oo macnaha waa la intii marka baarista la waday baa waxaa la helay tin jab yar oo tina baa laga helay meesha tintaas marka dumarka oo imaanayo meesha loo shaqeynayo walaalaheed dadkii dhan waxaa la marinayo tintooda ajab laga jaraayo tinta meeshta la isku fiirinayo soo way soo diyeelan waayeen marka waxaa la qofkan la qofka midda shaqada ka daba tinta meel dhigteen iyo baaristaankeedu qof kasta ka shaqeeyay way soo qabanayaan tinta ay ku baarayeen marka almuhiim naagtan way baxda qalinka soo samaystay subaxdii way imaaday gurigooda iska imaaday iyada marka qorsheedu waxa ay maadaama naagtan way dhimatay wajada inay baxdo qalinka soo samaysato subaxdii imaaday janaasada ay ka soo qeyn gashay
way imaada sidii aad dhacday janaasadii ka soo qayb gashay meeshii ooyinteeda bilowday allah raxma saxiibadeedu cumriga qarrac wada meeshii daraamadeedu ku jishay way baxdanaagtaa gurigeeda tagtaa way imaadaa marka 5 daqiiqo kadib way imaadaa marka 5 daqiiqo muddo kadib way imaadaa macnaha waxay rabtaa markay qofka tuuga sakaadhi badan mugta waxay rabtaa inay dhageyso talow tuugi ma la helay maxaa la dhahay xog noocaas yartaa inay ogaato markasta way imaadaa guriga tacsida xitaa markay dhamaatay way imaadaa si weekly way imaadaa hadayna maanta imaanin beriye imaadaa macnaha saas markay ahayd gabadhina waa la iska soo aasay aaskii loo sameeyey waa la iska soo aasay dadkii meelay kiiskeedu wuxuu noqday wax soo xirxirmaya sababtoo ah waa la waayay waxba waa la waayay raad waa la waayay fara waa la waayay wixii dhan waa la waayay marka maalmaha kamid guriga imaaday guriga markay imaaday iyadoo warkeeda daleyso allah quyuu ahaa tuugaas aan ilaahay ka baqaynin oo gabadha saayeel balaa ku qaadi meesha habar daleyso waxa afarsaday qof kamid dadka tacsida imaaday oo laakiin hayfa qaraabadeeda markaas wuxuu dhahay Sukayna adiga waxay dhahaysaa marka wallahi waaba fiican tahay hadduu tuugaas taleefankii qaatay ma taleefanka laga tixraaco waana iyada yaa taleefankan gurigeedu yaalaya saasina dhumeysa markaas qofkii wuxuu ku dhahay fiir adiga baaritaanka adiga lagu marsiiyo markaas aniga ma iga shakinay maya adiga ma shakinayo laakiin annaka dhan baaritaan la marsiiyo xataa walaaleeda dhashtay waa la baaray adiga askartii ku wacday markaas maya ana askarta ima haday ii wacaan dhib male waa u tagaayay miya ha in askarta u tagtid waayo oo lagu baaro oo maxaa liiga baara laakiin ana saaxiibteedu cumrigeeda ana iga dhimatay ana sheeka noocaas markaasuu dhahay dhib ma lahan laakiin baarista qasab waa maray waa inaan martaa waayahay dhahdo iska way baxday markay baxday gurigeeda orod ku tagtay oo taleefankii soo qaaday ay fogeysay meel magaalada geeskeeda ay kusoo tuurtay soo tuurtay way soo noqotay gurigeeda imaaday waxay kadib askartii la wacay waxaa jirta gabar noocaas oo hayfa saaxiibo ahaayeen ma baarteen ma yaalna askartii waxay dhahan gabadhaas baara tararka askartii soo dhahday iyada guriga imaadaa la soo baxay baaritaaniga ma adamiga dad galdhib male baaritaan ku marsiinay soo baxaa waa la soo waday saldhigyaa la keenay saldhigi markii la keenay su'aalaha la weydiiyey intee jirtay ninkeeda marka la socday iyada marka la soo qabtay ninkeeda la socday waxaa la dhahay xilligaas falku dhacay adii intee joogto markaas dhahay anu goormaa kugu dambeysay maalin ka horeysa sheegtay markaasuu ninkeedu wuxuu dhahay wadaraad soodagii ku dhahday waxaa maalinta dilku dhacay soodagii ugu dhahday heefaan aadaa maya ma dhihin ma aadin maana aadin intee aadahay waxaa aaday meelka adiga waxay ugu dhahday heefaan aadaa xagee aadaa markaasay ka mirigsiisay way garan weysa waxay sheegto markaas alla maalintaas xagee joogtay aday marka laba dhiba haysto haday dhahdo heefaan aaday oo heefaan jooga ninkeeda ilaan heefay ugu sheegtay waa caqabad oo adaa dilka ka dambeysa la dhahaa hadee dhahdo cisbitaalkii aadana ninka cisbitaalka maxaa ka doonto dhahay ma oga waxay sheegtay garan weyse markaas wuxuu dhahay xagee aad sheegala markaas way dhahday ana cisbitaalkaasan jiro cisbitaalka maxaa ka doonto ninkeeda qaliin oo caloosha micdada meeshaan hawe iyo hab soo bisaas xanuun iga hay waa iska soo qalay dhahay ninkii indhihi soo taag wuxuu dhahay goormiya waan ma bii sheegin goormiya aad u dhahay cisbitaalka maxaa ka doonto dhahay cisbitaalka qaliinka micdadan ku sheegay micdada way ku xanuunayeen waa ogahay laakiin ma bis foogeen inay aadadu dhahay ee see ku aaday okay bisal dhaqatirta qaliin dambe baarista way bixeen cisbitaalka tageen waxay soo akiidiyeen lacagtii ay bixisay inay sax tahay xilligaas cisbitaalka joogto wixii oo dhan ma keen soo saareen marka soo saareen waa u imaadeen waa la wacay ninkiina wuu la socdaa waxaa la dhahay adi moogid in naagtaada baxday waxay soo ogaadeen marka in qaliin ilmo isku soo ridida sameeynaysa ninkeeda waxaa la dhahay ma ogtaa la naagtaada in ilmo qaliin aaday qaliin ma ahayn macnaha in ilmo isku soo saaraysay mayuu dhahay ma ogin ilmaha xeega keentay waa la qiiliyay waxay tirahay iyada kaligeeda marka hore waxay tirahay inaa ninkeyga ma oga ilmaha maxaa la dhahaa ninkaaga aad rabin inaad u sheegto waxaan lacagtan asaguusa kuga iya kaa dhiibay macnaha adiga le waa dilka adaag geysatay lacagtaana waa haday lacagteeda iyo dahabkeeda wixii dhan haday lacag saas iska soo bixisay xeeg keentaa lacagta adiga ma shaqaysatid hooy guri joogtaa tahay lacagtan waa lacag aad u badan intan lacag xeeg keentaa la markaasay u memerisanaysay ninkiina wuuba shoogayba wuxuu dhahay uurka ilmaha iska soo ridaysa intee ka keentay su'aal kale noqotay adii war sidii loo wada markii dambe waxay dhahday khalaas xaqiiqadan sheegay dhahday waa la hayaa mooho tinteedii baa waxaa la nasay jab tintii laga baaray tintii exactly waxay noqotay tintii marka waxay isleedahay
tinta marka laga baaraa tinteeda maxaa ka rabtiin waxaa la tinta waa la baaraa wadaad adiga ahayn dhib malaha waa la baaraa hala marka waa la baaray waxay isleedahay marka marada ma iska siibto talo meesha tintaada miya ilaa markii xijaabka sii darto waxay rabtaa ka go'eyso almuhiim tintii la baaray ayaday noqotay marka waxaa la adiga waaye lacagtan meesha ka keentay inaad sheegtid ninkaaga kumuusan ogeyn ilmaha soo xaaqays wixii kaa dhalay inaad sheegtid markii dambe oo iska qalatay waxay tiri sax waaye anaa dilay nin kale jiro oo is jecelnahay ninkaasaa urka u lahaa adiga oo sheekadoo dhan ka soo wada sheekay sababta u dilan waxay dhahday lacag way haystay lacagtuna way ii diiday sidii marka waxaa la sameeyay ay ku qiratay inay ayada dishay marka qof kasta oo maqla in hay sukeena ee dishay heefa waxay la noqotay filan waa sababtay taa waxay ahaayeen saaxiibul cumriga waxa la dhahay ahaayeen ilaa yaraantood iskuulka meel hoos iskaga soo bilaabeen ilaa ay isla dhameeyeen waxbarashada isla dhameeyeen ilaa tan la guursaday ilma dhashay gabadhaana weli lama guursanayda qadiibay haysatay qadiibay markaasaa waa la qadiibtay mar dhawaa la aroosi rabay marka qofkii dhammaa ee nolosha ugu dhowaa oo dadka dhan isla wadagayna saaxiibayin baa falkaas ku kacday oo lacag daraadeed u dishay qof kasta wuu filan waayo iska maaldeedna waa aniga soo daayay qisa nuucaan oo gabar saaxiibadeed ee adduunka ugu jecleed ee dilaysa leh mararka qaar wuxuu noqon karaa dilaagaaga qofka adiga nafsada ku dhaafin lahaa baa wuxuu noqon karaa saaxiibkaaga adiga kuugu dhow marmarka qaarkood sidaasaa lagu dilay eedana lagu xukumay caddaa waxaa lagu xukumay icdaam daldalaada lagu xukumay soo laakiin in lagu filiyay in kala qisada ma soo gudbin intasaa kusoo gabagabaynaynaa sheekadeena haddaa ka heshay like noo saar fiideo noo sheerkada asxaabtaada la wadaag waana ku mahadsan tahay daawashada fiidiyoyaasheeda intaan fiidiyo lamid ku kulmi doono waxaa idinku dhaafaa nabadgelyo